bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijooyinka kulamadii shalay la ciyaaray ee Euro 2020 iyo kuwa maanta la ciyaari doono iyo sidoo kale kulamadii xalay ee Copa America barnaamijkeena waxaan ka marnaan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like saar like-tan waxay naga caawinaysaa in asxaab badan u gaar muuqaalka mahadsanidin shalay ayaa la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay ee guruubyada B iyo C xulka wadankaasi Ukraine ayaa guuldaro hal iyo eber waxa ay ka soo gaartay xulka wadankaasi Austria halka Macedonia ay la ciyaartay xulka wadankaasi Holland waxaana Holland ay guusha ku raacday 3 gool iyo waxba gruupka C ayaa waxa ciyaaray xulalka Russia iyo Denmark waxaana guusha ay 4 gool iyo gool ay ku raacday xulka wadankaasi Denmark halka xulka Finland uu gool daro 2 iyo eber ay ka soo gaartay xulka wadankaasi Belgiumka maanta ayaa la ciyaari doona kulamadii ugu dambeeyay ee gruupka D waxaana ay ciyaaruhu soo wada gali doonaan saacada 10 habeenimo xilliga geeska Afrika xulka wadankaasi Croatia ayaa la ciyaari doona xulka wadankaasi Scotland halka Czech Republic ay la ciyaari doonto xulka wadankaasi England sidoo kale xalay ayaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Copa America xulka wadankaasi Uruguay ayaa la ciyaaray xulka wadankaasi Chile waxa ayna ku soo gabagabowday ciyaarta gool iyo gool xulka Argentina ayaa gool iyo eber ku garaacay xulka wadankaasi Paraguay markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda Arsenal ayaa hogaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa qadka dhexe ee kooxda Real Betis iyo xulka Argentina Gudo Rodriguez laacibkan ayaa kooxdiisa ka soo muuqday 38 ciyaarood xilli ciyaareedkii ina dhaafay waxa uu xiiso badan ka helay horyaalka Premier League sida ay wararka tilmaamayaan tababaraha kooxda Arsenal Arteta ayaa si daran u doonaya in laacibkan uu keenay naadiga London ka dhisan waxaana wada xaajood ay la bilowday naadiga Arsenal dhigooda reer Spain ee Betis laacibkan oo haatan xulkiisa ku metelaya Copa America ayaa ahaa dhaliyaha goolkii xulkiisa kaga adkaaday Uruguay maalinimadii Sabtida waxaana heshiiskiisa naadiga reer Spain ku jira qiimo ay tahay in ay bixiso kooxdii doonaysa waxaana dushiisa saaran 69 milyan oo euro naadiga Arsenal ayaa haatan dalab daafur ah oo gaaraya 26 milyan oo euro u gudbisay Real Betis waxayna rajo ka qabtay in qiimaha xidiga ay isku fahmaan labada naadi dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa wada hadal la furtay kooxda reer England ee Wolves iyaga oo doonaya goolahayaha xulka Portugal Rui Patricio kooxda Wolves ayaa ku qiimeysay xidigii hore ee kooxda Sporting Lisbon qiimo u dhaxeeya 10 ilaa 13 milyan oo pound sida ay warinayso Sky Sports tababaraha cusub ee kooxda Roma Jose Mourinho ayaa rabay in xidigan uu ka mid dhigo laacibiinta uu ku xoojinayo kooxdiisa cusub ee Roma xilli ciyaareedka dambe 33 jirkan ayaa heshiiska naadigiisa Wolves waxa ka harsan oo kaliya hal sano waxaana wakiilkiisa Jorge Mendes uu sidoo kale matalaa tababaraha reer Portugal ee Mourinho ciyaaryahankan ayaa Wolves kaga soo biiray Sporting Lisbon qiimo dhan 16 milyan oo pound waxaana kooxdiisa uu saftay ilaa 157 kulan isagoo shabakkiisa wax gool ah laga dhalin 37 kamid ah kulamadaasi dhinaca kale sida ay qoreen warbaahinta Ingiriiska tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa weydiistay maamulka naadiga in ay qiimeeyaan xaaladda garabka kooxda Wolves iyo xulka Spain Adama Traore sida ay daabacday AS oo ka soo baxday Spain iyada oo soo xiganaysa Birmingham Mail Tuchel ayaa doonaya dhamaystirka saxiixa laacibkan xoogan ee Traore xagaagan isla warbixinta ayaa lagu sheegay in xidigan uu ka walwalsan yahay mustaqbalkiisa Wolves markii waqti dheer uu qaatay wada xaajoodka labada dhinac ee heshiis cusboonaysiintiisa kooxda Wolves ayaa wali ku guuleysan in heshiis ay la gaartay xidigii hore ee kooxda Barcelona waxaana macquul ah in albaabada ay u furto dalabyada u imaanaya waxaana heshiiskan haatan ka harsan 2 sano oo kaliya kooxda Chelsea ayaa doonaysa adeega Ashraf Hakimi balse waxa ay u muuqataa in tartan adag ay kala kulmayso kooxda reer Faranse ee Paris Saint-Germain waxaana midaas ay ku riixaysaa naadiga ee Champions League inay u weecato Adama Traore tababaraha reer Jarmal ee Thomas Tuchel ayaa taageero weyn u ah xidigan xawaaraha sare waxa uu dhowr jeer isku dayay saxiixiisa intii uu ku sugnaa Paris Saint-Germain kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa ku dhow dhamaystirka saxiixa daafaca midiga ee kooxda Inter Ashraf Hakimi kooxda reer Faranse ayaa dhigeeda Inter u soo bandhigi doonta qiimo dhan 75 milyan oo euro
waxaana la aaminsan yahay inuu ku filnaan doono helista adeega laacibkii hore ee kooxda Real Madrid. Warkan waxaa laga soo xigtay khabiirka ciyaaraha Sky Sport Italy ee Gianluca Di Marzio. Khabiirkan ayaa tilmaamay in dalabkan cusub uu kooxda reer Faransa kaga horumarin doono tartanka laacibka loogu jiro kooxda reer England ee Chelsea. Dalabkan ayaysan PSG si rasmi ah ugu gudbin Inter, balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa inuu gaaro Nerazzurri. wadahadallada labada naadi ayaa si xoogan ku socday maalmihii dambe. Hakimi ayaa mar hore heshiis shakhsi ah la gaaray PSG, waxaana kaliya uu ka warsugayaa heshiiska labada kooxood. Ugu dambeyntiina sida uu ku waramayo wariye Ekrem Connor, kooxda Manchester United ayaa xiiseynaysa daafaca kooxda Leicester City ee Charles Soyuncu, waxaana laacibkani ay haatan ku darsadeen liiska daafacyada ay doonayaan xil ciyaareedkani. wariyahan ayaa ku waramaya in kooxda Red Devils ay goordhow wadahadallo ay ku ogaanayso suurtagalnimada in xiddigan uu ka hayaamayo Leicester City ay la yeelanaysa naadiga Foxeska. Connor ayaa sidoo kale sheegay in Manchester United aysan ahayn kooxda kaliya ee ka dhashay Premier League ee doonaysa saxiixa laacibkan, waxa uuna tilmaamay in naadiga Chelsea qudheeda in ay raadinayso daafac reer Turki. Laacibkan ayaa xil ciyaareedka la umacana la qaatay naadigiisa, waxa uuna soo jeeday kooxo badan oo ka dhisa horyaalka Premier League kuwa uu doonaya adeeg difaacani. Manchester United ayaa dalab 40 milyan oo pound ka gudbin doonta laacibkan, waxaana macquul ah in Leicester City aysan aqbalan qiimahaasi. barnaamijkeeni galabtana waa inageynta.